السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان وايدين سلامية مدمد ايان ايدين سلامية وانيقو الشرماك حسين عثمان بروس لايون ديستربيوتر وعنكو قدو جرنا عشرة انكو قادو جرناي اونلاينكا مانتا وحان اسلا قادنينا عشرة مهمة عشر كانا وحالي يرادا 5 laws of success شانتا شرعي بوشا هذه ربطة نولشاني إناد قوليستو inaad ku dhaqanto shantani sharci waa ku muhiim hadii aadan ku dhaqminna macnaheedu waxay ka dhigan tahay guushuba ma doonaysid hadii aad shantani sharci ku dhaqanto oo aad hirgeliso xitaa hadii aadan doonaynin guul waad guuleysan doontaa waxa lagu leeyahay laws you can't avoid and shantani sharci kama fogaan kartid iskamana inda iyo dhaga tiri kartid because waa shantii sharci aad raaci lahayd ama shantii wado ee aad mari lahayd okay horta waxa la yiraahdaa guushu mar waliba dadku waxay u maleeyaan wado iska toosan oo la raaci karo laakiin guushu sida u maleynayso way ka dhawaan kartaa wayna ka dheeraan kartaa guushu mar waliba ma ahan sida aad adigu u maleynayso sida aad u maleynayso way ka dhawaan kartaa wayna ka dheeraan kartaa waxa lagu leeyahay what the people think it looks like dadku guushu waxay u qabaan inay wado toos oo la iska raacayo ay tahay hadii sida ahaan lahayd qof kasta ay raaci lahaa cid dhuntana lama arki lahayn guushu waxay u baahan tahay inaad raacdo wadadeeda ma ahan inaad ka harto okay what it really looks like maxay u eg tahay waa wado leh jiiradyo leh buuro leh wadooyin dhaadheer hadii aad wadada raacdo ugu dambeyn halkii aad rabto waad gaaraysaa laakiin hadii aad raacin you don't want to success ma doonaysid guul samahan okay shanta sharci aan ka hadlaynay hadii aan qaada dhigno ama aan falaqeyno oo hal aan ugu hadalno maxay tahay shanta sharci kow the law of a desire sharciga jamashada ama sharciga go'aanka inaad adigu wax go'aansato oo aad waxaasina aad jamato wax aad adigu rabto markii aad go'aansato ayuun baad adigu waxa aad heli kartaa hadii aadan waxba go'aansanin waxba ma doonaysid if you want something badly enough you will get hadii aad wax si dhab ah u rabto waxaasi waad helaysaa laakiin hadii aadan rabitaan lahayn waxba ma helaysid Soomaalidu waxay ku maamaahdaa saddex u baahan ayaa jirta waxa la yiraahdaa dambi toobadkeen u baahan ayaa jira nimco shukri u baahan baa jirta iyo dadaal samir u baahan ayaa jira guushu waa dadaal samir u baahan samir ayay u baahan tahay waxa aad rabtid inaad u samirto okay qodobka labaad waa the law of a belief sharciga aaminitaanka ama inaad rumaysnaato waxa aad adiga rabtay anything you wanted to believe to be true will be your reality wax walba oo aad adiga aad aaminto waxay noqdaan waxa ku rumoobi doona ama way rumoogaan hadii aadan adigu waxba aadan aaminsaneen waxa aad adigu markaa qabanayso hadaadan aaminsaneen ma ku rumoobayso because adiga ayaa aaminsanaaba in aysan miradhal ku noqon ama waxgal aysan ku noqonin waxa la yiraahdaa aaminitaanku markii laga hadlayo gobonimada hoolyari nina kuma helaye hasaabo jiifiyo hurdo kuma timaade haween ninkan u guureen hool lama yiraahdo guushu waxay u baahan tahay dadaal iyo aaminitaan inaad aaminsan tahay okay waxa qodobka saddexaad oo soo gudubna marka the law of a positive attitude inaad adigu ahaato mid dhanka wanaaga wax ka eega sameeyga inaad tahay adiga the way we think is the way we perform sida aan anaga u fikirno waa sida aan anaga qahayno ama sida aan anaga wax u soo bandhigano ama sida aan anaga u dhaqaaqayno sida aad adigu u fikirto ayuun bay wax walba naqanayaan hadii aad danka positive ka wax ka fiiriso wax walba waxay isu bedelayaan positive wanaag ay isu bedelayaan hadii aad adigu rumaysan tahay ina waxa aad rabtay aad gaaraysid waad gaaraysaa hadii aadan aaminsaneen ma gaari karaysid because you don't believe it ma aaminsanid marka wax waliba waxa muhiim ah inaad adigu aad aaminsan tahay wixii intaadan helin kor inaad heli karto waa inaad aaminsan tahay
okay qodobka saddexaad aan ku jirnaaye waa inaad waxa lagu leeyahay you become what you think you are. waxa aad adigu ku fikirto ayuunbaa adiga naqaysaa. adigu maxaad ku fikirtaa? ma inaad yacni nin tahay howlkar, geesi, haliyey, dad fara badan wax u qaban kara, hal abuur, karti leh, miyaad isu qabtaa? waa tahay. haddii aadan ahayn, waxaan waa qodobkii afaraade, waxaa lagaga baahan yahay the law of persistence, adkaysi ama dhabar adayg. guushu ma ahan habeen wax lagu gaaro. guushu waxay u baahan tahay safar. geedigaagii waa inaadan meel aadan markaasi rabin aadan ku furan. hayaankii aad sameynaysay waa inaadan ku furan meel adigu markaa aadan rabin. persistence ayaa lagaga baahan yahay, adkaysi ama dhabar adayg. waxaa lagu leeyahay if you keep trying you will succeed. haddii aad adigu isku dayaysid, aad sii wadid isku daygii, waad guulaysanaysaa. laakiin haddii aad isku daygii u joojiso ma guulaysan karaysid, because isku daygii wax waliba waxa wax noqdo waa isku dayga iyo inaad persistence. the law of persistence ayaan weli ku jirnaaye. guushu waxay u baahan tahay dhabar adeeg. adigu hadaf ayaad leedahay ama dream ayaa gacanta ku haysataa. hadafkaagu qofna ma ogaan kara, laakiin adiga ayaa og. maxaa kaa horeeya marka wadada guushi ama goolkii ama yoolkii aad lahayd? maxaa kasoo sokeeya? wax badan baa kasoo sokeeya. waxaa jirta qaraabo, relatives baa jirta. mid kasta budkiisa ayuu leeyahay, bud ayuu gacanta ku haystaa. waxaa jira friends, saaxiibkii oo ku dhahaya niyahow waa kuwaaninaya, anigu waan ku jeclahay, waan kugu faanaa, sidani ma ahan, saas ma ahan. wuxuu ku sheegayaa adigu wax aadan malaysan karin. guushuba wuxuu kaaga dhigayaa wax aadan adigu aadan qaba karin. waxaa jira kuwa la yidhaha pessimistis, kuwo beesistayaal ah. waxa aad adigu qabanaysa ayay ku been ayay kaaga dhigayaanba. waxaa jira glory, waxaa jirta wax la yiraahdo ereyga ugu dhow Soomaali ahaan waa isheeg dambiile. waxaa laga dhigayaa qof dambiile ah. adigu dambi inaad gashay oo kale ayaa laga dhigayaa, because adigu waxaa tahay qof hadaf leh. hadafkaas aad gaari lahayd ayaa lagaaga sheegayaa dhaliilo iyo waxyaabo aansan jirin. maxaa kasoo sokeeyo? fear, cabsi ayaa kasoo sokeysto. sidoo kaleeta society, bulsho ayaa kasoo sokeeya. kadib waa maxay? goal ama goals, yoolkaagii ama halkii aad adigu hiigsanaysay. ninka kubadda cagta dheelayo yoolkiisu waa maxay? inuu gool kaa dhaliyo. haddii uu maanta gool dhalin, gool waan dhali waayo miyuu dhahaa? maya, wuu u adkaystaa. maalin kale ayuu saf soo galaa si uu goolkii u dhaliyo. guushu waa inaad u sabartaa adiga. okay, waxaan ka hadlaynaa marka qodobka wali waxaan ka hadlaynaa persistency-gii. haddaba waxaa jira waxyaabo qaar kugu muuqda adeeg. haddaba waxaa jira raka iyo boolonboolo maa la yidhahdaa baashangiis. bahashani waxay biyaha kasoo dhex qabatay raka ama rah sidaad u taqaanaba. afka ayay gelisay. rakii isagana dhuunta ayuu kaga dhigay, because of ma rabo inuu dhinto oo caloosha la geeyo. ninkana booloboolada muxuu doonayaa inuu laqo uu dejiyaba. marka noloshu waa inaad tahay never give up, qof aanan isdhiibaynin. ha isku dhiibin noloshani. ma ahan mid mudan in la isku dhiibo. waa inaad adigu aaminsanataa, sidoo kaleta go-aan aad lahaataa, sidoo kaleta aad u adkaysataa. okay, the law of persistence ayaa weli ku jirnaaye. dhabar adeega ama adkaysiga. waxaad arkaysaa buur dheer oo biyo kaliya jeexayaan. biyaha iyo buurta yaa adag? buurta ayaa adag dabcan. ma waxay ku jeexday awood? maya, waa ku celcelin iyo adkaysi. markasta ayay meeshii soo marayaan biyihii. marka buurtii ayaa waxay ka samaysteenba wado. persistency-guna waa sida oo kale. haddii aad wax u dhabar adeegto ama u adkaysato, waad ka gudbi karaysaa. okay, the law of goal setting, habka marka sharciga loo dejiyo yoolka ama hadaf. haddii aad rabto inaad noloshani ka guulaysato, waa inaad adigu dejisataa yool ama hadaf.
haddaadan yool ama hadaf lahayn noloshani way kugu adkaan doontaa. There is no achievement without goals. ma jirto guul la gaara ayadoonan yool ama hadaf loo lahayn. waa inaad adiga yool aad leedahay ama hadaf ama bartilmaameed. waxa way qofka aan hadaf lahayn wuxuu la mid yahay markab aan radar lahayn. markab aanan meel u socdo aqoonin bal ka waran badweynta iska dhex sabeynaya meel u socdo ma garanayo samaha. qofka aan hadaf lahayn waxay ka dhigan tahay isagoo uu markab ku sugiyo gegada diyaaradda. markab ku soo xiranaya gegada diyaaradda dabcan waa maya. haddii aadan adigu hadaf lahayn ama yool aadan lahayn ama qorshe cad waxay ka dhigan tahay markab ay ku sugaysaa gegada diyaaradda. waa inaad markii yool samaysataa si aadan markab ugu sugin gegada diyaaradda aad ugu sugto diyaarad. waa maxay marka the law of goal setting sharciga marka yool samaysiga waa inaad ka dhigtaa horta smart. goolka aad samaysanayso waa inuu ahaadaa wax qurux badan, waa inuu ahaadaa specific, wax adiga gaar ku ah. yoolka aad samaysanaysid waa inuu gaar adiga ku ahaadaa. guri, family inaad dhisato, inaad gaari adigu leedahay, that's specific, waa wax gaar. measurable waa inay tahay wax la cabiri karo. haddii aan dhaho ka waran jeeg ayaan qaadanaya badweynta biyaha yaala ayaan soo daldalaya macquul naqamaysataa samaha biyaha badda jeeg kuma dhamayn karo. okay marka waxa aad adigu aad rabtay waa inay tahay measurable, wax marka la cabiri karo. sidoo kale waxa la yiraahdaa achievable, la gaari karo. waa inuu ahada wax la gaari karo. sidoo kale waa inay ahaataa realistic, sababaysan. sidoo kale time frame, waqti cayiman leh. waa inuu waqtiga isaga ka dhaxdarsaneen. wax kasta waa inay ku kala qorsheysan yihiin. haddii aad adigu tahay 1 star waa inaad ka fikirtaa qaabkaad ku noqon lahayd 4 star, 5 star, 6 ma darajada joogto darajada ku xigto. ma ahan mid kale inaad ku hamiso inaad bronze iyo wax lamid aad ku hamiso maaha. waa inaad adigu ka fikirtaa heerka aad joogto heerka ku xigo. waa inay ku kala cayiman yihiin. gabagabadii ama gunaanadkii Soomaalidu waxay dhahdaa hadal waa la qaatumeeyaa, quraanna waa la qatimaa. haddii aad adigu rabtid nolosha inaad ka guuleysato waa inaad ku soo dhaqantaa shanta sharci aan ka hadlaynay. shantaas oo ah inaad adigu aad wax aad rabtay ay jiraan oo aad adigu waxa go'aansatay. sidoo kale waxa aad adigu go'aansatayna aad aaminsan tahay. sidoo kale markaad aaminsan tahay waa inaad dhanka wanaaga aad wax ka aragtaa, xumaan oo kaliya waa inaadan arkin. sidoo kale marka inta aad soo samaysid waa inaad la timaadaa adkaysi oo u soo dhabar adeegtaa waxa. markaad u soo dhabar adeegtana waa inaad samaysataa yoolkii ama hadafkii ama qorshihii aad ku gaari lahayd. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحدك كاميرا إيجا عاونية حسين محمد جيدي حينوف. آدي يدوم هاتسنتهين.